بسم الله الرحمن الرحيم أصحابتي صباح وناكسن meel kasto aad dunida aad ka joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha saaxiibayaal waxaan eegi doonaa suuqa kala iibsiga oo dhawaan xirmi doona iyo kooxda Chelsea oo xalay lagu durduriyay warbixinahaas dhan ayaan eegi doonaa saaxiibayaal haddii ay tahay markii ugu horeysay asoo booqto channelkeenan fadlan subscribe noo saar waana ku mahadsantahay saaxiib la janqadkaaga kooxda kubadda cagta Chelsea ee ka dhashay horyaalka Premier League ayaa wajahaysa sanadkan wax dhibaato weyn maadaama ay soo gadatay ciyaaryahano badan oo aan tayo lahayn waxa ay soo gatay Raheem Sterling ma lagu dhigi karaa Raheem Sterling dhacdhacow ninkan mar walba dhulka yaala mareer baa lagu dhigi karaa Sterling ayaa wuxuu u yahay weeryahan halka ciyaaryahanada hore ee winner iyo saddexley iyo afarley ka kacayaan marka waxa la yaabo way Chelsea kooxdan waxa loo maleynaya sanadkan inay ku dhameysan doonto wixii afar ka dambeeya oo sanadka dambe ay noqon doonto khamiisley ay noqon doonto Arsenal ayaa booskooda qaadan doonta sanadkan Chelsea aad iyo aad ugu taala wax ciyaaryahan ay soo gateen wax tayo leh ma ahan weerar iyo dhex fiican iyo ciyaaryahan weyn oo tayo leh ma soo gadan difaac aan waxba tarayn oo aan macnaha boon hagaajin karna khalkhal miirana oo roos iska qaadanaya ay la soo wareegtay kooxda Chelsea wallahi sanadkan geed ma saarna waa la yaaban sanadkan kooxda Chelsea waa loo yaabaa waa ogaan doonto sanadkan afarta sano ee horyaalka Premier League Chelsea kama soo noqon doonto Raheem Sterling ayaa gool leeyahay Raheem Sterling gool lagu sugaya kulankii hore Leicester Raheem Sterling ku baxsadeen sanad maalin walba iyo kul walba Raheem Sterling reer lagu dhigi karaa ilaa aan ku dharshay Raheem Sterling goolkiisa dul yimaado nasiib ka qabtaa saanu ku fiican yahay Raheem Sterling ilaan gool dhalinaya Raheem Sterling gool dhalinaya hal gool iyo laba gool dhalinaya waba wiyaab heli karo Raheem Sterling hadana waxa la yabsaa kooxda kubadda cagta Chelsea difaac ma aha difaac kala daadsan oo aan boona sixi karin ana horaan igu sheego waxaan idinku iri kooxda Chelsea hal kul mareen ka dho hadii gool kaanta ka maqan yahay mareen ka dho ana idin taas waxa maqlaysan inka maxaa la sameeyaa Raheem Sterling hadii uu ka maqan yahay gool kaanta haduu ka maqan yahay kooxda Chelsea hal gool atriye gool macla maciisho kordho Kovacic baa joogay xala ciyaaryahan badan baa joogay waxay watri waayeen hal striker la oo fiican oo neen ka ciyaara oo the best oo sida Ilan Haaland oo kale goolka farfarinaya Chelsea waa weyn Diego Costa baa ugu dambeysay ka bacdina konton neymo soo qaadata oo kulli wada meenaysa kulli waa laga dira wanaadiga waa isku toosilayaan adiga sida ugu tagay 2018 laacibkii lagu magacaabi jiray Diego Costa adiga 9,000 oo neef fiican oo xirfad la ah keen laada anaga 50 milyan iyo naga soo bixinaysa war neef fiican oo tayla doonta suuqa Chelsea naga u fadhida hal gabar u fadhida suuqa Chelsea suuqa hadda gabar waa taladeed wax ma lagu dhigi karaa ilaahay idinku dharshay gabar taladeed waxa lagu qaadi karaa sanadkan Chelsea u maleyn maayo inay ka soo noqonayso afarta ugu sareysa horyaalka Premier League khamiislayaal iska laabanaya sabahan ii sheegaya Chelsea Southampton ayaa hal laga hormar waa laga daba keenay labo awood bacna awood waayo walaalkiiyo awood saddex xal la hormaray kamid hore waxa la halka kaal baa la yiri waana weeraraya boonay soo bandhigtay Chelsea xalay waa daawanayeen hada boonigaas miyaa Premier League lagu qaaday lagu tartami karaa waa artay Arsenal soo ku asantahay sanadkan san miyaa walaalkiiyo san reer lagu maray Chelsea waa in wax badan ka badishaa macnaha san Chelsea always sandaqada ma ku dhaliso kaliya badanaysa maxay tahay Stamford Bridge sandaqada Chelsea marka lagu dheelayo kaliyaan badina waxaan lagu idna loo murisay karo waa inaad ugu kulanka ugu tahay oo naadiga anaga ka soo jeed waa inaad ku dhufan doontaa bilowga horeeyay Premier League la ku faahmay taa waxaas bilowga horeeyay Premier League waa la ku faahba wariya ilaahay iyo rasuulka iskaranay halka Arsenal ay wadareynayso ay hogaanka horeeyay Premier League ay gacanta ku hayso inkastoo la yiri waa kumeel gaar la yiri oo temporary way waxay Arsenal waxay temporary way halka ay qora Arsenal waxay waa temporary
ka yaabin ee Arsenal champion fiirso labada kulan soo socota waa laga reynaa Arsenal la nadiga saddex kulan bayal iska dhiga sana kulan Arsenal waa isku toosaa dhahay adigina waxba isku toosin waxa isku toostay malahan hadda waa isku fi hadana waxa isku toosay Arsenal sanad Arsenal ma isku waxa la leeyahay waa isku toostay miya marka waa kulan ugu horeysay waa isku toosan ka Arsenal waa sanadkada Allah ya laba kulan kabada waxa maqaltaa adoo kaaya orniyo kuwan naadi ma ay ka xeeniyo inkaara ku rahaysata iyo barastamolkaaga iyo waxa isku dooranaysaa saas way walaalkiiyo marka saaxiib waxaan suuqa iibsiga waa inaan saaxiibayaal suuqa iibsiga horta leebrig la kaaray waa xirmin doona suuqa iibsiga horyaalada qaarada Yurub oo dhan hadda waxa dad ba qamaamaya dirtaan Chelsea oo waa qamaamaya nayna iraadinay qaba had dirtaan oo kale nayn bila tayile oo lacag qaali ah ku soo qaatay heli ka fikir ninka hool u diyaara ama shaqo raadinaya waa ninka si shaqaysta suuq inta furna wax badan u furna mada suuq markaas waxa nayn la raadin lahaa nayn tayile oo fiican oo fircoon oo saas u furfurinayo golash moral raadina walaalkiiyo laakiin hadda dirtaana macnaha nayn raadina nayn waxa helay tayaxun oo tayadiisu aysan raqiis tahay tayadiisu الله ما يكرسر هذا سوقاتا أسيا بقولون لنا أسيا قولون لنا ما سوقاتا أسيا إذا ورنيو إن كان مسند كان عمدا نقطور كنت أفتمن كبير كسوق بحيان كنت أقول وسجد لنا مية يا أرس بالكي تشيلسي مركا صاحب يا سوق ليسيغا وفروا حرم الدولار دوان وحال ريجنيا ان لعب بدن او كميد yahay لاعب ku dhalay Real Madrid Marco Asensio iyo لاعب badan oo kamid yahay Cristiano Ronaldo in ay iska bixin doonaan adiga hadda ay joogan waxa loo soo warinayaa in ciyaaryahan badan oo kamid yahay Pierre Aubameyang oo jooga Barcelona oo asaguna iska tagi doona xaggaas Stamford Bridge ayaa loo xaglinayaa saaxiibayaal laacibkan reer Gabon ee Pierre Aubameyang marka saaxiibayaal suuqana sanadkan waxa ka jira wax weyn suuqana daash ka faa'iido ni sheega waxa ka faa'iido Manchester kale Manchester qof tayel raadinay oo ila hal waaq 6 gool la maray raga Premier League inta bara kulamada 4 kulan la maray 6 gool la maray ya sanadkan konto ko gool oo reerka Premier League waa scoorka Maxamed Salah jibina ba ku dhaha konto gool lagu qaaday sanadkan in konto reerka Premier League hadiisan uu soo wareerin ama dhaawac soo gaarin konto ku caawa sanadkan waa la karaa لاعب كله مار إلا هلا أو صدق اللي سووا الرئيسي اللي يبان كوريدي ورنين كان نجوم وينيو كتورة وأنا كم سنتي ساحب عشان قد كن هدي أدويل نسي شوتي فضل سكري موسى وأنا كم سنتي ساحب عشان قد كان